Puntland tan maalintiina xabadaha isku leyso boosaska isku qabsata Puntland yaana oranaya shacabka hameenkiina tooreedii xabada la isku dilayo haddaan runta la sheegin wax ma hagaagaan shacab nabarka la tuujin oo hilibka malaxoobay laga turin oo aan qalajiyo lagu sameyn daawo lama helayo gobolkan mudug dhibaatooyin badan oo soo noqnoqonaya oo annaga noo ah dhaqan aan lahaan jirin sharaf ka dhac noo ah ayaa sanooyinkan dambe soo noqnoqonaya sidii ciyaalkii faacali oo muqdisho kala ah oo imisa sano hameenkii dadka laaya tooreeya nagu qabta telefoonadii nagu dhibay dhagihiina qarxiyay bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Fawsiye Shire Ciise halkaan waxaan ka salaamayaa Soomaali weyn meel kasta ay joogto waxaan gaar ahaan u salaamayaa madaxweynahayga Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisa haddana gaar ahaan waxaan u salaamayaa dowlad goboleedka Puntland madaxweynahayga Siciidani iyo xukuumaddiisa dhammaan waxaan salaamayaa dadweynaha reer Puntland culimo awdiinka uqaasha nabadoonnada gabdhaha hooyooyinka dhalinyarada dhammaan iyo walaalahayga galmudug oo madaxweyne qorqor ka mid yahay iyo inta la shaqeysaba salaan kadib maanta waxa ii farxay gaalkacyo joog wariyaasha iyo dhammaan saxaafadaha idaacadaha kala duwan oo Puntland ka shaqeeya waan salaamayaa halkaan maanta waxaan nasiib u helay wariye Cabdiraxmaan oo naynaasta ku dheer kaahiye waxaan doonayaa inaad wararkaygan aad u sii gaarsiiseen shacabka aan ka mid ahay iyo xukuumadda iyo maamul goboleedka Puntland meel kastay joogaan waxaan codsanayaa gobolka mudug iyo gobol kasto nugaal ha noqoto bari ha noqoto sool sanaag ha noqoto xukuumadda Puntland meel kasto ay taalo waxaan ka codsanayaa madaxweynayaasha waa Dani iyo Firdhiye in hawsha sida aad noogu haysiin ka badan aad noo wadiin siiba gobolkan mudug dhibaatooyin badan oo soo noqnoqonaya oo annaga noo ah dhaqan aan lahaan jirin sharaf ka dhac noo ah ayaa sanooyinkan dambe soo noqnoqonaya waxaan doonayaa Islaan Bashiir Islaan Cabdille Amir Maxamuud Yuusuf oo asaguna gobolkan gaalkacyo u dhashay iyo nabadoonnada iyo inta nacmudu ka kooban hawl noo taala oo aan iska indhasaabaynaa jira laakiin allaha weyn hanala qabto waxa weeyaan gobolkan waxaa ku soo noqnoqonaya rag dhalinyaro isugu jira in waaweyn isugu jira oo sidii ciyaalkii faacali oo muqdisho kala ah oo imisa sano hameenkii dadka laaya tooreeya nagu qabta telefoonadii nagu dhibay dhagihiina qarxiyay oo rag gaajoonaya maaha rag waddan kalena ka yimid maahan waa ciyaalkaana madarasadaha quraanka dhiganaya iskuulka dhiganaya oo annagu aan ogaanay guddi iyo xaafad haddaan ka tirsannahay meel walbo magaaladu ay tahay kii la soo qabtay kii kaleba waxaa daba ordaysa hooyo ama aabbo oo moodaya inay sharaftiisii dhowreen waxaan ka codsanayaa nabadoon muxuu ahaa Xasan Maxamed Jidxun Faysal Sheekh Cali Caasha Geelle nabadoon Yaasiin Cabdisamed oo ku suntan raggaas darbiyada inoogu dhagan oo dhaawacyadii iyo dhimashadii iyo qabiilka isku geynaya horta Yaasiin Cabdisamed iyo wadaadada ragga mudug u dhashay qabiil kasta ha ahaadeen in ay raggaas Yaasiin waxaan ku arkay asagoo shaqaynaya hadda ka hor oo tuuga iyo hooyadii ama kii aabbo noqda garowan u gudbinaya yiri marka ninkaas waa nin nabadoona wuxuu galo iyo wuxuu gudo reer mudug way og yihiin dhankeenan kale oo galmudug ah ayaguna waa inay ayaguna dhankooda
wixii shaqaaqa iyo wixii wax dilaya oo ku soo cararo ay noo qabtaan annaguna waan u qabanaynaa sidii dhallinyarada mudug ay hadda ka hor guusha weyn uga keenaan gobolkan mudug oo arooska baraxley ka dhaca iyo kan xaafadaha gaalkacyo ka dhacaba ay isku mid ugu tumeen nabadgelyadu u hirgashay taasaan codsanayaa yaasiin cabdisamed in loo saaro puntlandtan maalintiina xabadaha isku layso boosaska isku qabsata puntland yaana odhanaya shacabka hameenkiina tooreedii xabadda la ysku dilayo haddaan runta la sheegin wax ma hagaagaan shacab iyo dowladayba dowladdu waa dowlad taagan laakiin dayac baa jira nabarka haddii korka laga dhayo aan maad aragtay aan nabarka la tuujin oo hilibka malxoobay laga turin oo aan qallajiyo lagu samayn daawo lama helayo dadkeennu ammaantii waxay jecel yihiin maad aragtay iyo annagu waa fiicannahay maanta annagu haddaan dumar nahay rag baa dagaal wada rag baa qori nagu cayrsanaya rag baa boosaska iyagii naga dhacay dee faysal cali waraababa wuxuu dhahaa garowa 1 iyo garowa 2 maxaa nairobi iyo gaalkacyo intaagay anigoo hooyaa oo qori wax walba layga furtay boosaskaygii layga dhacay gobolka mudugna u dhashay dee faysalba hadduu sheegay annagu waan qarxinaya ma qorqoor baanu weydiisanaa nabadgelyo iyo boosas mise firdhiyaan aadna labadaasa gacantayada midig taagani madaxweyne xasan sheikhna hadda ka hor 16 gobolada mudug dagaal baa ka dhacay oo aan tilaabo u soo qaadin madaxweynahayga aan maarta ugu tumanayn sool iyo laascaanana wuu ka dhacay waad ka gaabsatay saacadda dadka maxaabiista ay xiran iyo dadkaas walaalahaayoo dee weligeed Soomaali waa istigaali jireen dhibaatadu haysato meel kasta oo Soomaali joogto iyo madaxweyne kasta oo Soomaali ah iyo maamul goboleedyo adduun weynaha bashir intuu yinfidiyo waad aadi jidheene car hargeysa iyo laascaanood dhex gala oo halka keen ana maxaabiista waa dad Soomaali ah waa dad jirkeennii ah ilaahay wuxuu yiri qofka miskiin ka farxiya ama ummadda nacfiga u leh waan jeclahay maanta waxaad eegtiin weligeed Soomaali way isleeyeen oo taariikho dhan waan haynaa marka madaxweynayaashii hore waxaan salaamayaa Shariif Sheekh Axmed farmaajo ra'iisul wasaarihii Cabdullaahi Yuusuf la shaqeynayo aad uga helo wararkiisa iyo khayre iyo Puntland boqor burhaan ha noqoto islaamada ha noqoto war Soomaaliya inta isku tagtaan raggeennii hore waxbay dhexdhexaadin jireen imika waan arkayaa akhrisadan baan joognaaye laascaaniyo iyo hargeysa inta kala gurtaan oo maxaabiista sii daysaan qoladii dhib keenta hadda waan isugu wada tagno haddana kulli walaa isaaq walaa daarood walaa hawiye walaa jireer iyo jilic waa isku dadun baan hal abtiris baan leenahay fartaada hun baa li Soomaali xitaa fartaada xun filqaaga ma hadho isaaq hadduu khaldan yahay oo wax laayay asna waa la laayay waa qof Soomaali ah marka koonfur baa oloshay oo aan xal weyne intii yaraydo hargeysa iyo garowe intii yaraydo noogu macaanayd ayadana saaba loo fiirsanayaa madaxweynaha ku khaldan waxa ku khaldan oo dhan khaladkooda aan siinaya Soomaali maxamed oo dhan intii diinta muslimka iyo qurba joogtaba marka anoo hooyo ah kuna suntan Soomaalinimo waxaan codsanayaa halkaana in la eego laascaano iyo hargeysa waa dad isdhalo isla dhashay magaaladan gaalkacyana kuma tilmaami karo kulley hadda ahaan wax la yaqaano maalintiina xabad iyo qabiil iyo boos habeenkiina wiilal yar yar haddana maamulka Puntland baa nahay insha Allah ilaahay waxaan ka baryayaa Soomaaliya oo dhan inay midowdo madowga Allah inaga saaro ilaahay nabadgelyo hayna siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa nabad waadha iyo sharafteena iyo soo noqota assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh